تعالى وبركاته كسر دواء دمان أرض برنامج كلينيك كامل الست كعشر كني كوات جوجل نهاد وحكون برنامجنا يعني واحد يرى the digestive system disease and disorders أو أمريكا حبليس كريشيت كا أضرار كلها disorder и disease واسمه مركب بليس كمركب صقع بيو GIT مركب كشي digestive system فسؤال محاسبه كاني سؤال جبت الوحاوية حبليس كر مركب كبيلو ضعف كاجا إلا إيو ماي سحرة لوكيديو أما سحرة تبدي قاعدة أيوة حالسكير هذا GIT و gastrointestinal tract و علوشي من دعيره يسفقس كنغري قاعدة وحاسو إذا حصولها GIT مركب GIT disorders digestive system disorders واسكوميت مركب وحرجينا إن تفانتين كلمة داس and digestive system كمحوية مركب digestive system ka and what is digestion أنا كبلاين أرتا and digestion محوية digestion بربورين ومركا digestion نعمك مركا بربورين تمحوية is a complex process وحب أذك of turning لو بدل the food عنتدا you eat add عنتي into nutrients نفقوين process كعنتدا عنتي لو بدل نفقوين حالي هذا digestion أو أهلخيت أما بربورين which is the body كاسو جيرك يوسس أو استعماله في إن التمران أيو استعماله عنتدا عنتي جيرك مركو بربوريو انتاس العون اللي بربوريو حلو استعمال التمرهان سيدا إنات هذا إنات فريستو إنات أوردو يوحي لميدا سيدا كلا growth إن جيرك وكوكورو انتاس العونا سيدا كلا أن cell repair إن لغو ديعة سيرو أنوغا needed أباهن to survive إنو بتبادو إن ترسيدا قار هدي خوف كامسون عنتو عني مدة دورة waxaa burburay salisyadii sida RBC wixii la mid ah iyo WBC sida WBC ayaa burburay the digestion wax laqida ama digestion process nidaamka wax laqida also involves sidoo kale wuxuu la xiriiraa creating waste in wasakh oo sameeyo to be eliminated si jirka loogu saaro dibadda yani inta cuntay process markii la jibinaysan loo bedelayo waxa soo baxayo eliminating marka wastes waxyaalo wasakh ah marka eliminate waste was kumid marka ay meesha ka soo baxay the digestive tract tubooyinka marka wax burburiya ee cuntada marta ay waxa la yaqaan orso waxa la dhigi karaa gastrointestinal tract markaas la soo gaabo GIT alo macdan gastro oo calooshi intestinal oo ah mindhicirada iyo tract tubooyinkii wixii cuntada si qaaday ayaa la isku macdan is a long twisting tube wa tubo dhir ah that starts as below the mouth afka and ends at the ends it is made up of a series of muscles murqooyin xiriira that coordinate isku dabarida the movement dhaqdhaqaaqa of food cuntada and other cells iyo unugyada kale that produce soo saarta waxay soo saartaa marka tubadaasi enzymes dhacaan oo aan baran doona iyo hormones faldejiyaal to aid si loo gargaaro in the breaking down burburinta of food cuntada along the way ayadoo la maray marka wadaas dheer oo tubooyinka caaf ka soo bilowday ilaa tubada si aad mindhicirada si dhaafta are three other organs marka waxa meesha ka dhex shaqeeya marka cuntadaasi dhan saddex xubnood oo shaqo badan qabto aan arki doono cudurada ku dhaca iyo sida yihiin the are needed a loo baahan for digestion si loo burburiyo cuntada waxaa kaalmeeya tubooyinkaasi marka la si guud ku sabto siiyo tubooyinkaasi mara cuntada waxaa la yiraahdaa alimentary system xubnahan hadaan sheegno si liverka baarka wada baalarkana ay ka qayb qaatay in cuntadas la burburiyo ay waxa la yiraahdaa iyagana alimentary canal ay soo kala yiraahdaa marka waxa ka mid ah xubnahaas liver baarka gallbladder xamiitida iyo pancreas oo ah baarka yiraahdaa okay introduction digestive system digestive system is used to loo isticmaalaa for breaking down in la burburiyo food cuntada nutrients la burburiyo nafaqooyin which had then pass so good into the circulatory system ayagoo lagu daro marka cunto walba la burburiyo wixii nutrients inta lagu daro circulatory system yaa qaada siiba RBC ayaa ka shaqeeya and are taken waxa qaada to waxa loo qaada where they are needed meesha loo baahan in the body jirka ayaa loo geeyay wax walba isticmaasho okay digestive system ka waa halahan mouth afka liver glands qanjirada xanuufta esophageal hunguriga madow stomach caloosha pancreas baakteeriyada rectum oo ah meesha oo saxarada lagu kaydiyo NS oo ah meesha laga sii daayo okay colon ama large intestine colon marka ma qashin large intestine waa isku mid small intestine mindhicirada yar duodenum oo ah qayb ka mid ah mindhicirada yar iyo gallbladder oo ah
xamiitida iyo liver barka. Okay, marka waa inta salaas loo qalqeeyay. Marka waxaan baran doonaa halaha shay cudurada ku dhaca caloosha cudurada ku dhaca sida u shaqeyso baarka la mid mindhiciraha la mid insha Allah. Description of the digestive system. Marka cadeynta ama qeexida digestive systemka maxaa isticmaali kartaa marka maqasho gastrointestinal, also known as waxaa loo yaqaanaa marka digestive systemka the gastrointestinal oo ah GI tractiga. The digestive system dhiska dheefshiidka begins wuxuu ka bilaabdaa mouth of glutis ayuu isugu jira marka waxaa kasii qayb qaata esophagus hunguriga madow stomach caloosha small intestine mindhicirada yar large intestine mindhicirada weyn, also known as marka large intestine waxaa loo yaqaanaa colon ayaa loo yaqaanaa and rectum iyo meesha xarada lagu kariyo and endis meesha ku dhamaato adda anus ay ku dhamaataa. The entire system inta lagu yahay bliskaas marka from mouth ka bilaabto anus ka bilaabto is about waxaa loo qiyaasaa 30 feet oo ah 30 feet ama u dhiganta 9 meters long dhirir ahaan 9 meter. The small intestine mindhiciraha yar at 20 feet waa 20 oo u dhiganta 6 meter oo ah 6 meter u dhiganta tube waa shaped organ yani u samaysan qaab tub aan ay u samaysan yihiin. The first shaqada of the large intestine waxaa ka mid ah with about waa lagu qiyaasaa 5 feet long oo ah 1.5 meter oo dhiganta is primarily for storage waxaa lagu kaydiyaa and fermentation of ingestible matters waxaa lagu kaydiyaa marka ama lagu hayaa waxyaalaha aan la dheefshiidin yani ama waxyaalaha la dheefshiido wasakhda ah aan loo sii baahnayn in la sii burburiyo. waa arki doonaa caloosha markii cuntada lagu burburiyo nidaamyo kale martaa oo lagu sii burburiyo sida inay marto duodenum iyo duodenum ka arki doonaa. Also college waxaa loo yaqaanaa marka mindhicirahaas weynta colon ayaa loo yaqaanaa. It has 4 parts waxay ka mid 4 qaybood oo ah the ascending colon meesha ay kasoo bilaawdo kasoo gasho meesha afka hore bilowga, the transverse colon oo ah qaybta dhexe iyo the descending colon oo ah qaybta ugu dambeysa iyo and the sigmoid colon oo ah sawirka ku arki doona insha Allah. waa intaas qaybood. Okay, introduction ku jira wili the digestive system bliska dheefshiidka is used waxaa loo isticmaalaa for breaking down in lagu burburiyo food cuntada into nutrients in form of food bedelo. marka cafwan page-ka soo laabtay buugan inuu leeyahay umaynaya marka marka sawir there are waxaa jira 4 stages afar xaaladood to food cuntada processing ay marto. Ingestion oo ah taking food in cunto la qaato, digestion oo ah breaking down food into nutrients loo burburiyo, absorption oo ah taking in nutrients by cells inay la nuugo nafaqadii ee jirka la burburiyay oo ah loogu sii geeyo cells-yada jirka. Egestion oo ah removing in la saaro any leftover wastes wax walbo laga tagay oo aan jirka aan isticmaalin ayaa la yiraahdaa leftover wastes. Okay, mouth and teeth ay ka bilaabina and mouth maxaa begins wuxuu bilowdaa when food markay cuntada enters ay gasho food afka ayaa lagu burburiyaa. Okay, it physically broken down muuqaal ahaan ayaa waxaa u jijibiya by the teeth ilkaha ayaa muuqaal ahaan u jijibiya. It is begun waxay ka bilowdaa waxaa bilaabana to be chemically in waxyaalo chemical lagu daro in chemical la isticmaalo broken down si isticmaalo by ayadoo loo isticmaalo process la yiraahdo amylase oo ah in dhacaanka candhuufta ay burburiyaan ayaa waxaa la yiraahdaa amylase. Processkaas oo cuntada qof markuu qaadanayo candhuufta soo galaysa ama waxyaalaha jileec ka dhigaya nidaamku marayo waxaa la yiraahdaa amylase. Okay, an enzyme waa dhacaan marka amylase-ka in saliva oo ka jira marka qanjirada ka mid ah qanjirada candhuufta. Okay, that breaks down kaasoo jibiya carbohydrates wuxuu xisaaran yahay in waxyaalaha carbohydrate-ka uu jijibiyo. Okay, tanga carabka muxuu yahay marka the average length ahaan of the human tongue carab dhererka from laga soo bilaabo oropharynx oo ah hunguriga afka hore ee hunguriga marka laga soo bilaabo oo ah to tip ay afka hore laga imaado aan gudaha carabka gudahaysa marka laga soo bilaabo ilaa afka banaankiisa is what 10 centimeters in length 10 centimeter waa dherer ahaan. The tongue carab moves wuxuu dhaqdhaqaay the food and around ku yahay marka until ila laga marka it forms in isku noqoto a ball oo ah bolus waxa la yiraahdaa. Marka ballka cuntada la burburiyo afkaaga intaadan laqin ama laqdo hunguriga sii maraysa waxaa la yiraahdaa bolus halooyina infanta region doona. The bolus is a passage to waxay dhaaftaa pharynx oo ah hunguriga cad through ayadoo maray throat ama dhuunta ay marta oo ah arki doona xiriir ka dhaxeeya and the epiglottis oo ah qaybta dambe ee xigta hawada meesha epiglottiska waa kan qaybtaas cuntada markaad dhunjinayso xagga waxa ka xiga meesha hawada maraysay waxa xiray marka sphincter wax la yiraahdo oo noo imaan doono kadib
cuntadaasi qaybtaas dambe ayay ka maraysaa marka make sure oo xaqiijinaysa boluska and passes into inuu u gudubtay the esophagus inuu gudubtay and not down and hoosna uma degi karto the wine baba oo ah meesha hawada marto ion baba la yiraahdaa arki doona video ama arki doona sphincter markaan sharxi doono and esophagus-ka muxuu yahay asna esophagus is 25 cm wide long and waa muscular tube oo muruqa that connect isku xirta the pharynx oo ah unguriga to stomach iyo isku xirta caloosha the bolus cuntadii la burburiyay marka pass down hoos ay u degtaa esophagus-ka by ayadoo isticmaalaan peristalsis nidaamka peristalsis waxaa la yiraahdaa in relaxation isku imaad iyo kala bixid in la sameeyo sida cuntada waa kan food cuntadii inuu isku imaado murqo isku imaadaan kala baxaan waxaa la yiraahdaa peristalsis marka noocan ayuu dhacaa esophagus-ka ka dhex dhacaa indhaheeraan ka dhex dhacaa iyo caloosha waa imaan doonaa circulatory muscle oo ah murqaan asna inuu sii gudbiyo murqaan marka ayaa yiraahdaa circulatory muscle murqaas processka uu sameynayo cuntada inuu isku riixmo si cuntada hoos ku degto marka waxaa yiraahdaa nidaamkaas ayaa peristalsis la yiraahdaa marka waa qaabkaas inaad fahanteen peristalsis marka is a wave waa hir of muscular contraction oo ah isku ururid uu sameynayo muruqa the push uu riixayo the bolus oo ah cuntadii lasoo calinjiyay down towards asoo horay hoos u sii riixaya the stomach caloosha peristalsis waa kan marka in the digestive tract marka saamarku isku imaado iyo saan u kala baxayo waxaa la yiraahdaa peristalsis xanuuna ku dhaco waana imaan doonaa sidii loo daweeyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cashirkeena xiga iyo cashirka labaad aynu noqon doonaa hadduu ilaah subxaana wa tacaala ka raacno wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu